السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام saak waxaan weydiinayaa nimanka isku yeeray oromo oo ama leh oo NLF oo xornimo doonaan nahay ay leeyihiin duurkan ku jiro waxay ma aragtay meel ay xornimada ka raadsanayaan ayaa weydiin lahaa nimankan oo 40 sano ama 30 sano duurkan ku jiro oo injirta laayse oo intaasoo khasaare iyo intaasoo dhibaato ku dhacday xornimada ay raadinayaan cidda ay ka raadinayaan ayaa raba inaan weydiiyo waayo xornimada waxaa laga raadinaya dowladda waxa dadka guumaysanaya dowladda dowladda iyaga gacanta ku haasto madaxweyne waa iyaga wasiirada iyaga waa baarlamaanka iyaga ma aragtay ciidamadii federaalka dhammaan iyaga gacanta ku haya marka macnaha ay ma aragtay oo raadina meel ay wax ka raadsanayaan ma garanayo aniga marka sidaas darteed waxaan rabaa inay isoo jawaabaan ciddii ay wax ka raadsanayaan haddii dowladnimadii macnaha dowladdii ay guumaysanayso ay wax ka raadsanayaan dowladda waa iyaga sidaan hore u sheegay kadib waxaan ogaanay inay ma aragtay dadka jiiraankooda oo muslimka oo Soomaali ah oo iska degan oo wadankooda degan oo dhibaato iyaga ku haynin iyaga ku haya ma ogi ay ku laabteen oo ay dagaal ku qaadeen oo ay gubeen guryahood oo ay barakaciyeen maatida ay laayeen markaas kadib ayaa haddana waxay ma aragtay ku qaylinayaan inay ma aragtay iyaga la soo weeraray oo guryo laga gubay oo la barakaciyay waxay ku hadlayaan been aan sal iyo raad aan lahayn ayay ku hadlayaan qofka haddii wax bareero oo hataa Soomaaliya lagu noqdo oo ma aragtay jiiraanka lagu noqdo oo hataa lala dagaalo in ma aragtay been la sheego adoo wax weerartay haddana aad leedahay waa la soo weeraray marka waa ma aragtay aqli ma aragtay tuugnimo waay marka sidaas darteed nimankan waxaan weydiinayaa marka dowladaba waa iyaga ma aragtay madax ka ahaye wax kasta iyaga ka ahaye sababtii ma aragtay oo mudlaynayaan oo dhibaato u geysanayaan oo niman masaakiin oo iska socdo xujayda ma aragtay intii la soo feeliyo 40 ruux madaxa laga jaro madaxna kor la saaro oo dadka ma aragtay iska degan oo intaas oo sano isla degan yihiin oo Soomaali ah oo hatta gabdhaha qaar ilmaha qaarkood gabdhahooda ay dhaleen wiilashi abtuu ah inta ay guriyaha kala soo baxeen madax ka jarjarayaan marka oo ay sameynayaan wax ma aragtay dadnimada ka duwan ay sameynayaan kadib iyaga cabaadayaan oo leh waana la soo weeraray kana lagu sameeyay been aan waxba ka jirin ay sheegayaan marka aniga ma garanayo meesha ay ka socod ummadda ma aragtay qaarkood muslim sheeganayaan qaarkood inay gaal yihiin annaga baan ognahay adee nin asalkiis bagaala ma aragtay asalkiis gaala ma sidaan been u sheega miya hatta duu muslimo oo muslim ku biiro oo beenti gaalnimadii hore ma aragtay wili kama dhamaanaysa miya marka aniga xaaladaas waa garan waaye haddii hatta la leeyahay wadanka sida hadda ay ku amdacoonayaan wadanka annakaas kale dadaan ka kacsanayna Soomaaliya ka kacsanayna ay leeyihiin wadanka iyaga ma laha Soomaaliya iskale waagi hore awooweeyna waxaan ka maqalay wadanka in niman la yiraahdo daawi oo hadda warday la yiraahdo oo wadankaas iyo garaa isla degan yihiin ama iyaga Soomaaliya isla degan yihiin kadib boorante meesha wadanka soo gashay oo imaaday oo niman la yiraahdo soddon booro la yiraahdo oo 30 qofood oo booran inta imaadeen oo ma aragtay la soo dhaweeyay guri la siiyay ma aragtay gabdha la siiyay degeen la dejiyay si walaaltimo lagu dejiyay iyagoo markaas gaala ah dhammaantood hal qof muslim ka ahayn kadib ummadda Soomaaliyeed dhibaato ma aragtay aan halkaan lagu soo koobi karin ay ku sameeyeen dil ay ku sameeyeen
xaniyaha ama maaragtay xubnaha taranka ay ka jareen caadadooda maaragtay oo aan sharaf lahayn maaragtay ay muddo ku sameeyeen maaragtay waddankaas oo markaas hataa la qaadan lahaa oo Kenya u go' lahaa markii waagii maaragtay dowladdii Ingiriiska iyo Talyaani joogto waddanka joogto oo la rabo soodintii la bixiyo markaasaa la leeyahay oo markaas la weydiiyo odig maaragtay awowo noo yahay la weydinaay markaasaa waxaa la yidhi gaayaa la yidhi gaay markii la yidhi gaay ma jirto birakogaya ma ogi gaay markaas waxa ahayd Addis Ababa meel u dhow waay ama maaragtay ka shaqeysa ayaa Addis Ababa meel u dhow waay gaay hadda markaas la soo qabsan lahaa waddanka dhanba Kenya loo goyn lahaa marka awowgeena ayaa diiday gaay ma jirto birakogaya jirta markaasa waddankan dhanba maaragtay sababteena ayaa maaragtay awowgeena darti ayaa waddankaas dhammaala maaragtay Ethiopia loo jaray Boran intee jirta markaas xaggee ku dambaysa markaas waddanka hadda sheeganaysa waagaas sidaas ma dhihi laheeno marka sidaas darteed waxaan leeyahay Boran iyo maaragtay oromadan hadda la soo dhoodhoobay oo la soo abaabulay annaga waxaan naqaanaa Boranaan naqaanaa Gujiyaan naqaanaa Burjaan naqaanaa Arusaan naqaanaa ma ogi oromadan haya wax hadda la sheegay waa siyaasad la soo dhoodhoobay waay siyaasadii la soo dhoodhoobay ayaana hortaagan oo leh waddanka annakaas kale oromada intay ka imaadey oromo shalay la abuuray shalay la asaasay waa siyaasad shalay la soo dhoodhoobay siyaasad shalay la soo dhoodhoobay ma hadda dhulkana la doodaysa marka sidaas darteed waxaan weydiinayaa nimankan ama u sheegayaa xaaladii ay sheegayaan maaha xaalad xaqiiqa ka fog waay xaalad xaqiiqa ka fog waay oo been abuura ummadii aan la qaldin ummadii aan la qaldin dawladii aan la qaldin dawlad dalka haysana ma jirto dalka iyaga gacanta ku haasta haddii ay dagaal rabaan ma iyaga naftooda isku laabtaan oo wax isweydiiyaan dal guumeysi iyaga ma isweydiin haddii guumeysi jirto iyagaas guumeysta mogiyaa kale guumeysta ma aha in maaragtay walaalaha maaragtay dadka bani aadanka maaragtay ilaahay abuuray oo isla dhashay xaawi hadda ma isla dhashay muslim iyo gaalaba dadka walaalo waay dad dhulkiisa degan oo nabad ku degan in la barakaciyo maaragtay la salguuriyo guryahooda la gubo maalkooda la dhaco kadibna iyagla ay maaragtay been aan sad iyo raad aan lahayn oo ay sheeganayaan marka taas wax aqli ka fog waaye aqli maaha waxaan idin sheegayaa waxaad wadiin waa waxaan jirin oo been abuur waaye beentaas meel idin ma geynayso dalkana idinka malihi muslimaas kale soomaaliyaas kale soomaali waddankeedna kama kacsan kartaan nin dalkiisa dad u dhaafayo oo maanta ka tagay ma jiro meel cidlana yaan lagu daalin beenna yaan la sheegin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu samoogayaashiyo bulsida qarankeeno soma jeestayaashiyo marna lama saluugaano saxar laguma sheegaano sumcada nusqaamayno soomaali idilkeedba kasila ammaantiina sadrigiyo lafdhabartee